halkani waa barxadda xarunta tiyaatarka qaranka oo muddo 21 cisho ay ka socotay shaqada dib loogu dayactirayo. Mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, ciidaha iyo tacliinta sare ee dalka oo isku duuban ayaa soo gaaray xarunta tiyaatarka iyadoo shaqada isxilqaana ay si wada jir ah u qabteen dhammaantood. waxaa shaqaalaha loo kala qaybiyey 2 qaybood oo ka kala hawlgelayay xarunta tiyaatarka qaranka iyo maktabadda qaranka oo labadaba ay ka socoto shaqada dib loogu dayactirayo. madaxda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka barnaamijka isxilqaan. maanta oo maalin taariikhi ah wasaaradda waxbarashada oo ka shaqeynayso barnaamijka isxilqaan ee wasaaradaha dalku soo wadeen ee maanta ah ka soo qayb gashay wasaaradda oo tiro cudud aad ugu badan ku timid shaqaalaheega oo 2 qaybood loo kala qaybshay qayb waxay ka shaqeynayaan tiyaatarka qaybna waxay yimaadeen librariga oo hadda aan ka wadno shaqadii aan ka bilownay maanta oo kow ah maanta ayaan ka bilownay librariga sida hadda ka bacdi wasaaradda ka soo timaada sida ay wasaaradda waxbarashada isku qaybisay ayay isku qaybin doontaa oo 2 qaybood ka dhigi doontaa haddii Allah awood la ogolaado waa sida shaqada loo bilaabay marka wasaaradani wasiirkii wasiir ku xigeenkii wasiir dawladii dhamaantood wada shaqeynayna iyo shaqaalii agaasimihii guud BSK iyo shaqaalii hoos oo dhan dhamaantood taas waxay ku tusaysaa in wasaaradda waxbarashada tahay cudud lagu faanayo dadka ka shaqeynaya meeshan hormuudka ah wasiirka waxaan indhaheena ku soo aragnay shaqo bilaabatay runtii oo aan dhihi karno in ummadda Soomaaliyeed ay arkaan in hadalkii la yareeyo wax qabadna loo bedelo waxaan rabaa kaliya wixii munaasabada ahaa iyo arrimahaas kale wasiirkan u deyn doona laakiin tan fariin waxay u tahay qof walba oo shaki uu kaga jiray in mataqaanay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo qof walba oo ka tirsan nidaamkan hadda shaqeynaya inay marqaati ka noqdaan in aan u soo jeesanay dalkeena inaan dhisano. Laahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa xusay in wasaaraddu ay ka go'an tahay in ay si buuxda uga qayb qaadato hawsha dib u dhiska dalka oo ugu horeeyo ololaha isxilqaan. mashruucan isxilqaan sida ka muuqataba wuxuu diiradda saaraya marka u horeyso bahda waxbarashada haddaad fiirisid meelaha hadda culayska la saaray sida maktabada oo kale iyo museumka iyo tiyaatarka oo aan bahda waxbarashada ay muxuu ahaa aad qiimo weyn ugu fadhiyo intaba haddaa fiirisid muxuu ahaa waxaa la bartilmaameysanayaa meelaha bulshadu ay ka toosto oo dhaqanku ka toosto oo waxbarashadu ka toosto intaa hadda la bartilmaamay markii laga soo tago wasaaradda waxbarashada iyo bahdeeda waa cudud aad u weyn waa cududda adeegto loona adeego. suduwaha shaqada dib loogu dayactirayo tiyaatarka qaranka Maryan Aadan Amiin ayaa si weyn ugu mahad celisay wasaaradda waxbarashada sida weyn ay ugu soo diyaar garoobeen isxilqaan. waxaa jadwalka barnaamijka isxilqaan ku qornay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo maanta aan u kala harin gudbahooda iyo dhigahooda ayagoo wato wasiirkoodii wasiir ku xigeenkoodii iyo wasiir dawlahoodiba shaqaalihii 100 iyo abaf ah waxay yimaadeen waqti hore oo anagaba aan soo shaqo gelin way ku mahadsan yihiin maalintii ay lahayn sida ay u guteen waxaan u kala qaybinay 2 group wuxuu maanta daah furay barnaamijkii isxilqaan ee ka bilaabanaya maktabadda oo hawsheedii maanta bilow tahay wasaaradaha kalena ay ku xigi doonaan groupna wuxuu ku haray tiyaatarka qaranka. isxilqaan oo markii hore laga bilaabay tiyaatarka qaranka ayaa imika gaadhay maktabadda qaranka oo yana xarun muhiim ah oo dalku leeyahay. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.